83 bare ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka xaqiijinta tayada xirfadlayaasha loo yaqaan COCda. Barayaashan ayaa xirfadlayaasha caafimaadka ka kooban 4 waaxood oo kala ah waaxda kalkaalisada umulisada, waaxda sheybaarka, waaxda kalkaaliyaasha caafimaadka iyo waliba sidoo kale waaxda farmasiga. waxaana looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo tayada barayaashan si ay u qiimeeyaan ardayda ka soo baxda kulliyadaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida. imtixaankan ayaana ka dhacay kulliyadda caafimaadka magaalada Jigjiga. Maareeya ku-xigeenka wakaaladda xaqiijinta tayada xirfadlayaasha deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Xuseen Xasan ayaa sheegay in qorshaha guud yahay in la helo 250 bare si ay u qiimeeyaan tayada ardayda kala duwan ee ka soo baxda kulliyadaha deegaanka Soomaalida. macallimiintaas aan imtixaanka ka qaadaynay waa xirfadlayaashii caafimaadka maanta qaybta departmentiga healthga ayaan ka qaadaynay oo dad ka kooban 83 qof oo iskugu jira qaybta clinical nursiga, qaybta midwifery nursiga, pharmacistiga iyo medical laboratory. 83 qof aan ka qaadanay imtixaanka waxaan ugu talagalay intii ka soo baxda ee baasta inaan ku darsano accessorieska dadka qiimeeyayaasha ah ee waaxda caafimaadka ah. waxa kale oo muxuu ahay COCgu imtixaanka ka qaado ama wakaaladda xaqiijinta tayada xirfadlayaashu ay ka qaadaan waa 5 waaxood guud ahaan marka la isku daro. waaxda koowaad oo healthga oo iyaduna 4 department oo si kala baxda, qaybta agriculture-ka oo iyaduna dhowr waaxood si kala baxda, qaybta economic and infrastructure-ka oo iyaduna computer science iyo water iyo light iyo waxaas ay hoos imanayaan, iyo qaybta furniture-ka iyo hard skill-ka la isku dhaho overall, iyo qaybta shanaad oo ah hotel and tourism-ka oo beauty salon-ka iyo dadka hotelada ka shaqeeya iyo xirfadooda in la tijaabiyo imtixaan laga qaado kadib shahaado la siiyo sidaana ay ku shaqo galaan ah. marka macallimiintan waxa uu targetkana waa 250 sanadkan gaarsiino. waxaan u badinaynaa waxa weeyaan inaynan una gaab ama yaraansho ayna meesha ka imanin ay dhammaan 12 gobol ee ka jiraan kuliyaduhu kulliyadii soo codsataba dad ku filan aan u diri karayna imtixaan ay ka soo qaadaan ayna soo qiimeeyaan ardaydu markay qalin jabisay in wixii la baray ay sidii ahayd u soo barteen iyo in kale inay qiimeeyaan ayaa loogu talagalay. qaar ka mid ah macallimiinta qaadanaya imtixaankan ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta. waxaan u tartamaynaa waxa weeyaan waa assessorski weeyaan oo assessor ahaan ayaan ku gelayaa examka maanta. marka rajadaydu aad bay u fiican tahay oo waxaan rajaynayaa inaan imtixaanka insha Allah taala aan sidii la rabay u keeno hadii la yiraahdo. waxaan ku doortay waxa weeyaan maadaama competency ahayo horay aan examkan oo kale u maray ayaan waxaan doonayaa ardaynimadeedii ayaan waxaan doonayaa iminkana inaan assessor noqdo oo anigu sii qiimeeyo ardaydii oo kala tusaalahan. geestooda barayaasha ka qaaday macallimiintan imtixaanka ayaa ka warbixinayo qaybaha uu ka kooban yahay imtixaanka laga qaaday barayaasha kala duwan ee la xaqiijinayo tayadooda. imtixaankan ma aha imtixaan lagu helayo dhibco ama waxyaalo kale, laakiin maxaa lagu ogaadaa xaqiijinta tayada qofka ayaa lagu ogaadaa. waayo qofku laba nidaam ayaan u qaadnaa inta badan. qofku marka uu noqonayo isaga laftiisu inuu macallin noqdo ama arday waxbari ha rabo ama ha noqdo inuu imtixaanka qaado. marka qaarkoodna waa marka uu ardaygu dhameeyo waqtigiisii waxbarashada kadibna uu rabo inuu shaqo ku raadsado. marka shaqada xilliga uu raadsanayo ka hor intuuna shaqo galin ayaa qofka waxa la tijaabiyaa tayadiisa ama kulliyadda uu ka soo baxay intee laga beetaydiisu gaarsiisan tahay. qofkan bulshada uu u tagayo hadhow ma uu qaban karaa, waxaan muxuu ka fahansan yahay, waxaan intee laga fahansan yahay, waxyaalahaas ayaa imtixaankan quality-ga ay qofka ayaa lagu eegaa. marka anagu maanta oo kale waxa aan qaadaynaa waa accessories ayaan rabnaa inaan ka qaadno. accessory waa maxay? macallimiinta la rabo hadhow inay ardayda imtixaanka ka qaadaan. marka maadaama macallimiintan kulka la ogaado waxaan laga dhex qaadan doonaa dadka quality-googu hayga yahay ama la isleeyahay quality fiican bay leeyihiin, kadibna hadhow ardayga wax way ka qaadi karaan